kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka warbaahinta jariiradda qodobada aad wararkeena ku daawan doontaan waxaa kamid ah Somaliland oo go'aan ka soo saartay siyaasiyiinta iyo dhalinyarada u safraya Muqdisho kadib kulankii Farmaajo iyo Cabdiraxmaan Aar wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya James Iswaan oo war ka soo saaray khilaafka dawladda federaalka Soomaaliya kala dhaxeeya maamulada iyo mucaaradka madaxweyne Farmaajo oo waraaqihii aqoonsiga ka gudoomay danjire ka socda dawlad boqortooyo ah iyo Axmed Madoobe oo wacad ku maray in uu faragelin doono arinta go'doonka lagu galiyay saaxiibkiisa ee Maxamuud Sayid Aadan qodobadaas iyo qodobo kale ayaad wararkeena ku daawan doontaan saaxiibayaal inta aanan guda gelin ka hor faahfaahinta wararkeena aan idin xasuusiyo fadlan haddii aad nagu cusub tahay saaxiib subscribe saar channelkeena si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay ka dhaca gudaha iyo dibadda aan ku bilowno madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa markii ugu horeysay ka hadlay xaaladda gobolka Gedo halkaas oo inta badan ay ciidamadiisa ku biireen dawladda Soomaaliya Axmed Madoobe oo ka hadlay shirkii golaha wasiirada Jubbaland ee Khamiista ayaa sheegay in xaaladda ka soo cusboonaatay Gedo aan intaas ka badan laga sii aamusi karin go'aan rasmi ahna Jubbaland ka qaadanayso wax halkaasi ka socda Axmed Madoobe ayaa sheegay inuu magacaabi doono guddi si faahfaahsan uga soo warbixiyo xaaladda gobolka Gedo hadalka Axmed Madoobe ayaa imaanaya iyadoo madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan uu ku sugan yahay ceel waqtigiina isla markaasna uu ku guuleysan laayahay inuu galo gobolka Gedo waxa uu diiday dadka deegaanka oo diyaar garoobay banaanbaxyo iyo ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka oo dhawaan sheegay inay ku biireen ciidamada Soomaaliya halka markii hore ay ka amar qaadan jireen maamulka Jubbaland dawladda Soomaaliya ayaa ku guuleysatay in iyadoo gacan ka helayso Ethiopia ay la soo wareegto in inta badan ciidamadii Jubbaland ee gobolka Gedo taasoo caqabad ku noqotay maamulka Jubbaland oo hadda u muuqda in uu lumiyay gobolka Gedo qaybii hore ee jariiradda media ayaa daawanaysan saaxiibayaal Somaliland ayaa go'aan ka soo saartay siyaasiyiinta iyo dhalinyarada u safraya magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya xukuumadda Somaliland ee uu hogaamiyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa ka hadashay siyaasiyiinta iyo dhalinyarada reer Somaliland ee u safraya caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho Somaliland ayaa sheegtay in siyaasiyiinta iyo dhalinyarada reer Somaliland ee u safra Muqdisho aysan waxba ka bedelayn qadiyadda Somaliland ee goon isku taaga ah gudoomiyaha golaha wakiilada Somaliland Baasha Maxamed Faarax oo arintaas ka hadlayay ayaa sheegay in aan loo dul qaadan doonin shakhsiyaadkaas isla markaasna ay xukuumadda marin doonto shuruucda dalka madax ha ahaado ama madax dhaqameed ha ahaado ama siyaasi ha noqde qofka qarannimada Somaliland ka soo horjeesta waxaa la marinayaa shuruucda dalka u taala loona dul qaadan maayo ayuu yiri gudoomiye Baashi wuxuuna intaas ku sii daray gudoomiyuhu xisbiyada qaranku waxaynu u sameynay inaynu qabiilka kaga tagno wixii dhaxdeena ah waa loo dul qaadanayaa laakiin waa lama taabtaan qarannimada Somaliland qof dhalinyaro ah iyo siyaasi xamar taga wuxuu ka bedelayo qarannimada Somaliland ma jirto qadiyadda Somaliland iyaduna waa lama taabtaan ayuu si raaciyay hadalkiisa hadalkan ayaa ku soo aadaya xilli shalay madaxtooyada Soomaaliya ayaa saanta qaranka gudoonsiisay wiil Hargeysa uga soo cararay xirashada dharka ka samaysan midabka calanka Soomaaliya jariiradda media ayaa daawanaysan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa warqadiisa aqoonsiga ka gudoomay danjiraha dawladda Japan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa warqadaha aqoonsiga ka gudoomay danjiraha cusub ee dalka Japan u qaabilsan Soomaaliya danjiraha boqortooyada Japan mudane Horire Riyoj ayaa madaxweynaha la wadaagay fariin iyo salaan uu uga siday boqorka dalkaas boqor Nuriyo iyo ra'iisul wasaaraha dalka Japan mudane Shinzo Abe waxa uuna ka mahad celiyay ka qaybgalka madasha iskaasiga ee wafdiga Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee madaxweynaha hogaaminayay danjire Horire Riyoj ayaa tilmaamay dadaalka uu ku bixin doono sare u qaadida xiriirka labada dal isagoo dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed uga mahad celiyay soo dhaweynta diiran sidoo kale dawladda Japan waxa ay ballan qaaday inay qayb ka noqon doonto qorshaha dawladda ee ku wajahan sidii xal waara looga gaari lahaa dhibaatooyinka ay geystaan fatahaadaha webiyada dhawaana ay gargaar gaarsiin doonaan dadka ku dhibaatoobay fatahaadaha
dhankiisa madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa danjiraha boqortooyada Jabaan ugu warbixiyay sida dowladda federaalka Soomaaliya ay uga go'an tahay xoojinta xiriirka ku dhisan iskaashiga iyo wax wada qabsiga ee kala dhexeeya dalalka caalamka. madaxweyne farmaajo ayaa ugu mahad celiyay danjira Horiirij xilka loo magacaabay, waxaana tilmaamay inuu soo dhoweyn wanaagsan kala kulmayo shacabka Soomaaliyeed. dowladda federaalkuna ay ku garab istaagayso gudashada waajibaadka diblomaasiyadeed ee loo soo egmaday. qaybihii dhexe ee wararka jariiradda media ayaa daawanaysaan. wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Swan ayaa war ka soo saaray khilaafka dowladda kala dhexeeya maamulada iyo mucaaradka. wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Swan oo golaha ammaanka siiyay warbixin ku saabsan Soomaaliya ayaa soo hadal qaaday khilaafka dowladda federaalka kala dhexeeya dowlad goboleedyada iyo siyaasiyiinta dalka. James Swan ayaa sheegay in wada shaqayn la'aanta dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada oo hadda sanad jirsatay caqabad xooggan ku noqotay in lagu guuleysto hadafyada qarameed ee Soomaaliya. waxa uu sheegay in si looga guuleysto ajendaha Soomaaliya ee 2020 ee doorasho ay qasab tahay inuu yimaado tanaasul siyaasadeed. tani waxaa qayb ka noqonaya wada hadal iyo isu tanaasul dhex mara dowladda iyo dowlad goboleedyada, hadafyada hay'adaha fulinta iyo sharci dejinta, kuwa hadda xukunka haya iyo madaxdii hore, hogaamiyaasha siyaasadeed iyo kuwa bulshada, ayuu yiri James Swan. hogaamiyaasha Soomaaliya waa inay sida ugu dhaqsiyaha badan ugu dhaqaaqaan sidii looga gudbi lahaa ismariwaaga u dhexeeya dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada iyada oo la eegayo danta qaranka, ayuu yiri James Swan. waxa uu sidoo kale ku baaqay inay muhiim tahay in heshiis siyaasadeed laga gaaro hanaanka doorashada 2020. sidaas darteed waxaan soo dhoweynayaa kulankii shalay ee madaxweyne Farmaajo iyo labadii madaxweyne ee ka horeysay. waxaan dhiirigelinayaa wada tashiyo kale oo noocan oo kale ah, ayuu yiri wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya. guud ahaan saaxiibayaal waxaa halkaas inooga dhan wararkii aad ka daawanayseen channelka Jariirada Media. waxaa naga xasuusinaa fadlan haddii aad nagu cusub tahay oo markii kugu horeysay oo daawato channelkan ay tahay, subscribe saar si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay ee halkan aan ku soo gudbino.